daawadayaal halkani waa studio Honkiga TV oo waddanka Sweden caawa oo maalin ay tahay bishii tobnaada 2016 dabcan waxaan halkan ku qabanaynaa barnaamij aan kaga hadlayno dhalinyarada iyo xagjirnimada sidee baa dhalinyarada looga ilaalin karaa inay xagjir noqdaan barnaamijkan caawa aan ka hadlayno runtii waa arrin loo baahnaa in laga hadlo waxa ay kala qayb qaadanaya halkan la fadhiyaa gudoomiyaha jahliyada Wamo oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Janaale iyo waliba xildhibaan Xamse Xorxor barnaamijkeena gudoomiyaha isaga ka warrami doona jahliyadu waxay qabato iyo hawlaha ay u xilsaaran tahay xildhibaankuna dabcan wuxuu nooga warrami doonaa isaguna ka dawlad ahaan sida u arkaan sida arrimaha looga hortagi lahaa ama loo joojin lahaa su'aashu waxa ku bilaabayaa gudoomiyaha jahliyada Wamo ee magaalada Västerås ee waddanka Sweden gudoomiye hore waxa nooga warantaa jahliyadiinan goorta la asaasay iyo waxyaabaha ay qabato bismillaahir rahmaanir rahiim salaan diiran ayaan usoo gudbinayaa Hon Cable TV iyo wariyaasha halkan caawa nala jooga intaas kadib jahliyada Wamo waxaa la aasaasay sanadii 2013 waxaa laga aasaasay magaaladan Västerås waxaana aasaasay dad asalkooda Soomaali ka soo jeedo oo doonaya inay qayb ka qaataan arrimaha horumarinta bulshada dadkaas oo isugu jira rag iyo dumar oo badankoodu degan magaalada Västerås qaar badan oo kalena ay degan yihiin gobolkan Västmanland ujeedadii loo aasaasayna waxay ahayd in anagu ka jaaliyad ahaan aanu ka qayb qaadano hawlaha wax loogu qabanayo bulshada Soomaaliyeed oo waddankan aad ugu fara badan oo dhibaatooyin fara badan ay si gaar ah u haystaan marka dhibaatooyinkaas sidii wax looga qaban lahaa oo dadku gacmaha isu qabsan lahaayeen oo wixii ka baxsan komuunka iyo dawladda iyo hay'adaha dawladda wixii ka baxsan dadka laftigooda laga doonayo inay sameeyaan in aanu qayb ka qaadano ayaa hay'adan loo sameeyay kun ahaantiina waxaanu sameynay guulo fara badan iyo hawlo fara badan baanu sameynay waanu isu nimid shirar joogto ah aan leenahay hawlo joogto ah aan qabanaa waxaan la xidhiidhnaa komuunka waxaan la xidhiidhnaa gobolka waxaan la xidhiidhnaa hay'adaha dawladda dhexe wixii gacan aan uga baahanana wayna siiyaan annaguna shaqadeena waan qabsanaa marka hawlaheena sidaas ayay ku socdaan guul fiicanna waanu ka gaarnay waayahay maadaama barnaamijka maanta ugu weyn ee ka hadlayno yahay xagjirnimada xildhibaanka iyo adiga baa noo su'aashan si wada jireedii weydiin doona adiga aan iska raacsaday gudoomiye waxa jira dhibaatooyin laga dhawaajiyay oo dhalinyarada islaamka ah ee wadamadan Yurub ku nool ama waddanka Sweden gaar ahaan marka maxay yihiin dhibaatooyinka ka hor yimaada ama haysta inta badan dhalinyarada wadamada islaamka ka timaada run ahaantii arrinta ku saabsan xagjirnimadu waa dhib jira oo haysta dhammaan ummadaha islaamka oo dhan waqtigan xaadirka waxaad aragtaa in caalamka islaamka badankiisa ay dhibaatooyin fara badan ka jiraan taas oo ah inay soo ifbixeen dhaqdhaqaaqyo ama dad aaminsan waxoogaa in aad loo adkeeyo oo lagu talax tago ku dhaqanka diinta islaamka taasina waxay keentay in dhibaatooyin fara badan iyo iska horimaad iyo ikhtilaafyo iyo dhiig badan inuu ku daato dhibaatada ayada ah oo xagga fahamka iyo fikirka iyo tafsiirka ku saabsan dhammaan dunida muslimka way haysataan dadka Soomaaliyeed markii halkan ay yimaadeen waxay ka soo qaxeen dabcan dhibaato dagaallo cadaadis dagaallo aan kala go' lahayn bay ka soo carareen waxay magangelyo u soo doonteen wadamada reer galbeedka waddankan Sweden dad fara badan oo Soomaaliyeed ayuu magangelyo siiyay oo lagu soo dhaweeyay inay si nabadgelyo ah u degaan waddankan Sweden oo ay ku noolaadaan waalidiinta iyo carruurtooda waxaa la siiyay waxbarasho waxaa la siiyay deeqo kala duwan okay dadkii noocaas ahaa halkii ay ka heli lahaayeen nabadgelyo waarta oo joogto ah oo ay naftooda iyo noloshooda uga bedeli lahaayeen ayaa waxaa dhacda in dhalinyarada qaar la duufsado oo fikrad qalada laga dhaadhiciyo
oo dunida ay ku nool yihiin iyo waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda looga dhigo waxaan jirin ama waxaan naf lahayn ama wax habeen iyo maalin ah. taasi marka waxay keentaa in dhalinyaro fara badan laga dhaadhiciyo fikirka asaga ah, taasoo keenta in dhalinyarada la duursado, inay noloshii caadiga ay ka dhacaan, in ay fikir maaragtay xagjirnimo aaminaan oo ay cadow u noqdaan qoyskooda iyo reerahooda iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Iswiidishka ay la nool yihiin. dabadeedna qaar fara badan waxaa loo duursadaa oo loo kaxaystaa meelaha ay ka jiraan dagaalada jihaadka ah sida Soomaaliya iyo Suuriya iyo Ciraaq oo kale iyo Pakistan iyo meelo fara badan. marka arrintaasi dhibaato fara badan iyo walwal fara badan bay ku haysaa dad badan oo dadka Soomaaliyeed uu ka mid yahay. marka dhibaatadu waa dhibaato weyn oo haddii aan laga hortagin oo intay goor tahay aan wax laga qabanin oo aan dadka la wacyi gelinin, hadhow dad fara badan bay saameyn doontaa naftooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda. waayahay gudoomiye waan kugu soo noqon doonaa xildhibaan xamse farfar sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyuhu adin waxaan weydiin lahaa dhibaatada ugu horreyn haysataa ama ay la kulmaan dhalinyarada islaamka markii joogaan waddanka iskuda maxaa loo kulmaa? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دنيا جالية دوامة وانتي بس وانتي لو كنا تمرين كان بدأ بالله صارصان استقبل بلاد الصومالية. احنا هذين من كبل يتون كيسة. وانتي أول كلمة هي وحن قول كنا قاعد سنة هي مرة بسم الله أن كورتج حج المدى احنا يسكتوها كورتج حج المدى. marka shaqadan dhawaan baan bilaabay arrinta iskuduwanimada oo agaasimaha iskuduwaha runtii waan ku faraxsanahay inaan jaaliyadda waamo kale iyo jaaliyadda shaqadayda waxaa ka mid tahay inaan organisationada jira ee arrimahan aniga shaqada kale inaan abuurnaba organisation hawsha nagala shaqeeyo waxaa kasii farxad badan inaan jiraanba organisationo wixii garanayo oo horeeri u tababaran oo u diyaarsanba ee arrimaha wax ka qabtaan oo waxaa ka mid ah shaqadayda iyo shaqooyinka ka hortagga in si fiican arrimaha bulshada in lala shaqeeyo si dhow arrimaha bulshada loo shaqeeyo waxaa la ogaaday meel kastoo la tagiyo wax kastoo laga shaqeeyo haddaan arrimaha bulshada jaaliyaduhu aanay hawshan ka shaqeynin in xalka saxda ah la helin marka aad baan ugu mahadinayaa waamo iyo maamulkeeda run ahaantii sida uu sheegay maxamed arrinta waa arrin khatara dunida dhan way ka jirtaa waxaa jirta ola ay halkan dalkan ka isticmaalo la yidhaahdo ma jirto degmo odhan kartaa xagjirnimo free baan ka nahay macnuu waxa weeye maadaama ummado badan oo kala duwan adduunyada iskaga yimi ay dunida ku nool yihiin hadista waxaa ka bilaamaysaa dad kala duwan markay isku yimaadaan waxaa laga yaaba halkaa inay nacaybkii iyo xagjirnimada ka timaado weliba innaga tan islaamka nagu soo gabadin way kasii duwan tahay marka ayad marka ka yimaadaan qofkii dhib baa laga soo cararay dalkan buu yimi hooyadii amba aabii baa naf la soo doontay ilmuhu dalkan ay ku koriyeen ayaa haddana laga kaxaynaya markaasa dal kale oo kasoo jihaatamaya oo ku waayayaan waxaa halkaa dalka ka difaaciya weerarka uga gelayo lama garanayo marka dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta waxa weeyaan haddaba sidee xalkii loo helaa ilmihii halkan wax walba ku helay ee nolol ku helay ee waxbarasho helay sidee looga dhaadhiciyay inuu meel dagaal iyo meel dhibaato ah uu tago marka dhibaatooyinkaas barkooda waa dhibaatooyin taagan maanta in waliba gacanta la isku qabsado dowladda Iswiidishka kale aad bay arrinta isha uga haysaa waxaa jira in ka badan 400 oo dhalinyaro ah oo ka tagay dalkan Sweden oo jihaadoon dalka tagay waxaa jira qaar soo noqday oo ka soo noqday marka hawshaas waa hawl taagan barkooda oo dhibaatadeeda waayahay xildhibaan xamse haddaan su-aal kale adiga ku raaciyo oo iyadoo jirto xagjirnimadu oo imika idinku baad ka hadlaysaan dhibaato badanna dadka ku haysa haddana waxaa jira falal dambiyeedyo kale oo dhalinyaradu iyagoo noqonba xagjirin haddana ay ku kacaan oo waddankan gudihiisa ka dhaca ama waddamada reer Yurub marka maxay tahay maxaa u fududeeya dhalinyaradaasi inay raacaan kooxaha matalan fal dambiyeedyada sameeyo kale runtii horta dhib dambiyada oo dhan iyo xagjirnimadu isku xidhan yihiin statistics la sameeyo waxa la ogaaday dhammaan dhalinyarada had iyo jeer kuwa criminalka dambiga u badan inay marka dambe ku dambeeyaan xagjirnimada marka ilmaha markan uu dambiilaha noqdo marka hore qofka waa inay wada shaqeyn iskuulka iyo waalidka iyo organizationska waa inay wada shaqeyn dhow yeeshaan arrintan waxay u baahan tahay ka hortag in ilmaha waqtiga ka habboon waqtiga aan waxba laga qabato wax laga qabto marka markuu ilmuhu waxbarashadii ka baxo ee noloshii ka baxo drugs buu baranaya narcotic iyo drugs buu baranaya balwadu marka dambiilu noqonaya noloshii oo dhan baa kasoo xidhnaysa noloshii oo dhan kasoo xidhanto qofka ma shaqo tagi karo dambiilu noqday groupkiisu uu ka baxay markaas haddaba kuwan maskaxda dhalinyarta ka bedela helayaan oo dhanayaan maadaama halkan waxba ka weyday waxaa jirta halkii meel kale oo aad
wax ka helayso ama wax ka noqonayso. Marka arrinta dhibta aan inta badan ka hadalnaa waxa weeye in dembiga in arrinta criminalka iyo dembigu uu yahay wadada xagjirnimada. Marka waa wadada xagjirnimada oo kala marka dembigu su-aashaas gudoomiye adiga aan kusoo gudbiyo. waa sax weeyaan, waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. waxaa jira dembiyo dhowr ah oo isleh. dembiyadaas waxaa kamid a dhalinyarada oo sameeya fal dembiyeedyo ama maaragtay ku biira kooxo dembiye sameeya. waxay sameeyaan gacan ka hadal, waxay sameeyaan tuugo, waxay sameeyaan dembiye kale oo fara badan. qaarna waxay sameeyaan waxaa la yiraahdo waxay isticmaalaan waxaa la yiraahdo maanduriyaasha ama waxaa la yiraahdo narcotical. waxyaabahaas oo dhan marka waxaa kalifaya dhibaato jirta oo ah dhalinyaradu inay dareemayaan xoogaa shaqo la'aan iyo busaarad iyo mustaqbalkii aan u caddayn iyo waxay dareemayaan inay gooni yihiin. taasina waxay keenaysaa in ay ka faa'iidaystaan dadka dembiyada ka shaqeeya oo daraagiska ama ha gadaan ama fal dembiyadii ha sameeyaan ama dhac ha sameeyaan. marka waxay noqonayaan dad si fudud loo gelin karo dembiga oo loo adeegsan karo. marka dembiyadaas iyaga ahna aad iyo aad bay ugu badan yihiin bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Stockholm iyo Göteborg, Malmö, magaalooyin kale oo dhanna way wada leeyihiin, waa lagu kala badan yahay se. marka dembiyadaas waxyaabaha keenaya laftigooda weeyaan kuwa keenaya dembiyada xagjirnimada laftigooda isku sabab bay ka dhalanayaan, taasoo ah inay dadku dareemayaan gooni inay yihiin, inaanay waddanka mustaqbal ku lahayn, in aanay shaqo haysanin, in aanay dhaqdhaqaaq fiican haysanin, in aanay haysanin waqtiyada firaaqada wax kuman ay ka shaqeeyaan, in aanay lacag fiican haysanin, in aanay waxba qabsan karin. marka niyad jabka noocaas markuu dhalinyaradu ku abuurmo ayaa waxay keenaysaa dhalinyaradu in ay galaan kooxaha dembiyada sameeya. kuwa matalan maandooriyaha la geliyo oo kale waxaa lagu geliyaa qaab dhaqaale oo ah in kooxaha maandooriyaha iibiya ay dhahaan lacag waxaad helaysaa qofka iswilin ugu mushaaka badan uusan heli karin, kaale ayar shaqayso, ayar alaabtan qaad soo iibi, soo qarxe. hadhow alaabtii buu qaadayaa, wixii buu soo iibinayaa, waxa buu helayaa kiina saaxiibadii buu sheegayaa, saaxiibadana saaxiibadood u sheegayaan. taasi waxay keenaysaa in dhalinyaro fara badan hal mar ay isla galaan wixii oo maandooriye ay suuq wada galaan. waxaa kaloo dhici karaysa in la yiraahdo dhalinyarada falalka fal dembiyada ay kamid yihiin dhaca oo kala gala oo bangiyo ay dhacaan, shirkado dhacaan, dukaamo dhacaan. dhibaatadaasna way nagu fara badan tahay. iyo mawduuca kale oo ah mawduucan xagjirnimada oo isagana aan ka hadlayno oo isagu fal khatar ah oo isagu kaba sii xag jira kuwa kale oo dhan. marka waxaan way iswada leeyihiin. waayahay xagjirnimada su-aalo badan oo ku saabsan baa inoo soo socdaa waynu ka hadli doonaa, laakiin maadaama ka dhawaajiseen maandooriyaha iyo dhalinyarada inay aada u isticmaalaan, xildhibaan xamsan xoor baan weydiinayaa. iyadoo la ogyahay qofku hadduu maandooriya isticmaalo inay dembiyadu u fududaanayaan ama kooxaha xagjirka oo kale inuu raaco ay u fududaanayso, maxay tahay sababta dhalinyarada ku kalifta inay maandooriyahan isticmaalaan marka horeba? wallahi horta saan maxaad sheegay weeyaan inta badan oo la iskaliyaa, laakiin horta dhibta waa dhib Yurub oo dhan ka jirta. kuweena qura maaha, dhammaan dhalinyarada Yurub ku nool oo dhan iyo generation oo dhan arrin ka jirta weeyaan. marka waa aafo la doonayo. waxaa jira group iyagu waxaan shaqadooda tahay oo raadinaya groupka u daciifka in la isticmaalo oo waxaan la baro si markaa shaqadoodii iyo noloshii waxay ku jireen dad ba ka ganacsada waxaan. marka hadda jira suuqeyn bay raadinayaan, suuqeynta waxay raadinayaan yaa u nugul aad isticmaali kartaan. marka sidaas waxay helayaan markaa dadka aan waxba haysan ama dhalinyarta iskuulka ka leexday oo la odhanayaa si yaro fudud baad u taajiri kartaa. marka waxaana jira dhibaatooyin la yidhaahdo group trick waa la iskaliyaa. haddii mid xumaado, haddii shan xumaadaan, magaalada ay degan yihiin Soomaali yihiin, inta badan isku meel baanu deganahay, inta badan dadka Soomaalida waa dad isku xidhan, waa dadkii waaweynaa baa wada jooga, dhalinyarada dadka kale way iskaga dhow yihiin. haddii mid iyo laba xumaadaan waxay khatar u yihiin groupka wada xumaadaan. haddii laba iyo saddex xumaadaanna waxaa laga yaabaa wanaagsanaan, laga yaabaa kuwa kale inay wanaagsanaadaan. marka dhibaatooyinka ugu badan waxa weeyaan inta badan Soomaalida haysta waxaan waa la iskaliyaa. marka kii wanaagsanaaba kii kale ku odhanaya waan shaqaystaa, lacag badan noocaasa shaqaystaa. marka markuu shaqaystana isticmaalkana wuu imanaya. marka dhibaatooyinka badan geliya waxa weeyaan anigu waxaan eedda inta badan saaraa in waalidku aan wada shaqayn dhow la yeelan ilmaha.
haddii waalidkii iskuulka wada shaqeyn dhow yeeshaan ilmaha gaalo caddaanku way ku dhacaan arrinkan dhalinyartoodu laakiin markaba waalidka ku baraarugsan iyo iskuulka intensifa la geliyaa waa lala socdaa qof dheeraada loo qabanaya marka waxaad moodaa dunidaynu joogno iskuulka iyo waalidka iyo arrimaha bulshada iyo xukuumaddu way isku xidhan yihiin marka inaga waxaad moodaa halka inay waalidka ka baqan yihiin oo ilmihii goora waxba laga qaban karin ba arrinkiisi la ogaado marka ilmo kasta wax laga yaabaa nolosha dhalinyaranimadu teenage-ku waa waqti ilmuhu isku dayo wax kasta inuu tijaabiyo marka statistics la sameeyo waxa la yidhahdaa 15 ilaa 21 waxa laga yaabaa in ka badan 40 dhalinyarada ilmo waxa soo tijaabiyeen oo isku dayeen marka laakiin qaar way ku sii talax tagayaan qaarna way ka joogayaan haddaba ku sii talax taga waxa imanaya in waalidkii iyo iskuulkii iyo systemka dhaqanka kale ah in waalidkii iskuulada iyo dhalinyarta iyo meelaha dhalinyarta isku xidhan yihiin marka inagana gaabkaas uu banaaya marka waa tan faraxsan jaaliyadahan iyo organizations oo kale inay jiraan halka marka ay gaabka ay buuxiyaan maadaama inagu dhaqankeena aanu hayn in waalidku soo dhow ilmaha la socdaan waxaan kaga faa'iideysan karnaa oo waliba aan ku faraxsanahay haddana waliba xukuumadda gobolkii iyo degmadii aan ka mid nahay in hawlaha ay buuxiyaan organizationadu oo bal wada shaqeyn dhow iskuulkii iyo waalidkii iyo xalkii si waqti hore arrinka xal loogu helo waayahay anoo su-aasha siin doona weli xildhibaanka oo guddoomiyaha kusoo noqon doona arrintan xagjirnimada ee dhalinyarada waddankan Sweden ku nool ama magaalada Västerås oo kale maxaa sababa waxyaabaha u fududeeya dadkan caruurta ka haysto oo kale inay caruurta ka haystaan oo ay caruurtaas xagjir noqdaan ama ay dagaal ka soo qayb galaan maxaa keena maxaa u fududeeya wallahi كو يلا بيا صدق واحد عطول ممكن صداي إنك لما هاي لكن أنت وحويان ومصيبة تاجن صالحان المها مركن ونولش بالود ويا شد راكس كو يا شو نولش كله حلو وحي لا مسيا إن لكم ميل أورني ميل كلا واحد وحنا دبعتها كود على شغلة أنت كود على العملات كود على الصن نقطي ومذهب كذا بالدين هذا وهلكن لقيت عليه مركا علمي وحي وقف هذه السنة يعني had dhibaatada ku timi uga faa'iideysanayaan fikirka ay lahaayeen marka waxa oranayaan duni kale oo aad wax ka noqonayso amba aad mujaahid ka tahay amba aad magac ku yeelanayso ayaa jirta marka dhibaatooyinka badan waxa weeyaan inta badan amba internetka midiyaha ilmaha internetka laga helaya amba meelaha la tagaa laga helaya ruuxantii laakiin waa in si dhow loo ogaadaa ilmaha halkii laga helaya marka lagu mashquulsan waxa weeye groupkii caruurtaha laga kaxeeyay aad weyday waxa laga yaabaa kii ka kaxeeyay inuu ka joogay yahayba laba garan kartidba وأنا كلا دبعتها كلا شوجا مركب حوالي المهن أركل لو مصور عن المها يكحي هالكون مري محا الكل لجاه لي مركب أرنتني برخضوا وأرين كفكر كذا ليه إنه قلنا وينو دبعتهم كنا يستحوي المي دل كي دبعتها هنا كلنا ميال كلنا نمي أدرها سورة لجاه لي والله كحيستي وأرين خطر كذا ليه مركب حوالي كلا إن وحلاجاه هلا هذا شيء ميديو وكمل إن ملها يارا وكمل مركب أرتاز وارن خطرتي ذلك. قدومي محمد هذا سؤال شهادة خويتيو وما حد صوبها كينيا إلى سوتشي تانا وها لأن يردون لغة بقيو حق شبي ماذا يورسيده. وصح سببها بدن كودا حلوان حمزة يا شيء وحوجا صفات حسن معناتي وش لكن وحن قدر لها ضدك حق جرك مقنع لأن يردا waxaa jira sabab asalkeeda keenaysa inuu qofkan dhalinyarada ah uu xagjir noqdo sababahaasna sababihii dambiyada kala keenayay bay kamid yihiin oo wax la yiraahdo isuush waxa la yiraahdo utaan qoshkaab oo dhalinyarada badankooda ay dareemayaan iyo mustaqbalka oo cadayn dabadeedna waxaa dhacda dhalinyarada badankooda in badanaa la geeyo masaajidada oo kale masaajidada iyo culimadeenu runaantii hawl fara badan oo iyo qabtaan oo loo baahan yahay oo waxay gelin iyo ilmaha aqoonadooda la baro iyo wax fara badan bay qabtaan oo dad fara badan bay ka badbaadiyaan dhibkaas inaan laga faa'iideysan laakiin saas ay tahay waxa lagu maamaaha khayr wax kuma yeelaa shar u tookaay waxa jiri karaya qof ama laba isagu dan gaar ah leh oo ilmihii si toos ama si dadban wuxuu ku sheegay markuu ilmihii uu helo ayaa waxa laga yaabaa ilmihii inuu maaragtay jiritaankii dhan nolosha uu uga dhigo waxaan jirin isagoo ku yiraahdo waxaad ku nooshahay midna waddan ku faar ah oo kale oo aad maaragtay cadaab xataa inaad ka shaal laga yaabaa buu ku oranayaa dabeetana cunugii ama gabadhii ama wiilkii wuxuu maaragtay nacayaa noloshii halkan uu ku noolaa
oo u arkaya waxaan jirin dabeedna wuxuu bilaabayaa inuu aado meelaha uu jihaadku ka jiro ama la leeyahay dawlad islaamid baa ka jirta sida Islamic State oo kale ama Daesh oo kale ama al-shabaab oo kale meelaha ay ka taliyaan ayaa laga dhaadhicinayaa wiilkii ama gabadhii inay tahay meel wanaagsan oo tahay in lagu noolaado ama hadii kale meeshaan la sii joogo cadaab baa la gelaya marka dadka waxaa u sheegaya waa dad badanaa ku xidhan kooxahan xaq jirka ah oo aan ka mid ahayn culimadeena wanaagsan dhalinyarada noo haysa ee diinta wax noo barta dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ka badbaadisa dhibka iyo aqoon la'aanta iyo jahliga ka badbaadisa waxna u sheegta marka dad yar baa jiri karaya oo noocaas oo kale ta ah waxa kaloo jiri karaysa in cunuga markii uu xoogaa fahmo in uu internetka galo oo internetka dabeetana uu ka helo dadkii duufsanayay ee wax u sheegayay oo markaasi culimadii wax u sheegaysay intuuba ka tago uu arka ayaga laftigoodii dad wax matarayaal oo maaragtay aan waxba qabanayn oo marka internetkii uu ku jeesto ayagiiba ka goosto hadhowna ayagu ay ka war helaan cunugii Suuriya ka dhacay ama shabaab uu ka dhacay hadhowna dhibku wuxuu ku dhacayaa masaajidkii cunugan ku xidhnaan jiray iyo meeshii uu ku xidhnaan jiray uu dhibku ku dhacayaa laakiin run ahaantii waxaa dhici karaysa culimadu inay bari ka yihiin waxaan oo maaragtay dhacay inayna waxba ka ogeyn laakiin hadhow waxaa la eedayn karayaa waxaa loo leeyahay cunuga xaguu ku xidhnaa cunugta xagee ku xidhnay yaa sheekhu ahaa yaa wax baraayay marka culimada laftigooda waxaa fiican inay maaragtay ka feejignaadaan oo qofkii ay ka shakiyaan ay wacdiyaan oo wuxuu shaaba dhahaa war muxuu ahaay sidaan anagu xukuumaana sheegin dib u soo noqon haddii kale hadhow goor xeer iyo fundaal ay kala dhaceen bay ka warhelayaan dhibkaasna wuxuu ku dhacayaa annagoo dhan buu nagu dhacayaa culimadii dadkan dhalinyarada wax u sheegaysa buu ku dhacayaa waalidkii buu ku dhacayaa dadka oo dhan buu saameynayaa marka sidaa way arrintu waayahay haddii aan halkaa yaro taageero si yar baritaaro waa runtii haddii masaajidadu aamusaan oo ay dhibta ka aamusaan dadkii waxay u arkayaan in meesha wax laga waday masaajidka tahay laakiin masaajiddu hadday hadlaan oo dhibtan ay wadaadadii ka hadlaan oo yidhahdaan arrinkana waa xaaraan arrinkana waa dhibtan waa sida ilmaha isha ku hayaan waxaa laga yaabaa in halkaa isku dhawaasho dadkii masaajidada ay yimaadaan waxaa dhacday imika magaalooyinkan suudan ka mid a reero ilmahoodii inta halkaa tegeen ay ku waayo kaga dhinteen masaajid ku tegi jiray ay dabeeto dhibta iyagu ay u cadhoodeen oo isqabsi halkaa uu ka bilaabnay waayo wuxuu leeyahay halkan ilmahaygu iman jiray marka dhibtan isa maxaa sheegay masaajidka ma aha waa meel cid kale oo aan dadkii saxda ahayn ayaa ilmaha helaysa marka waxaan ugu soo gabanayaana waa diinta ugu soo gabanayaan marka mar haddii diin loogu soo gabanayo wadaadkan saxdii waan isku diintii saxda ahayd u sheegaa idhahdaa tan lagu sheegaya waa qalada diinta saxdii isqarxinna ma ogola dagaal jiha nidaamkana ma ogola dadku waa marka waa in wixii la geliyo waa in wadaadadu ka maydhaan arrinka kale muhiimka waxa weeyaan wada shaqayn waalidku ilmaha waa dareemi kartaa markuu isbedel ku yimaado saaxiibaduu bedelayaa waqtigu iman jirin ma imanayo hadalkii wuu yaraynayaa noloshii oo dhan adigii qof gaal iyo nidaam kufaar ku nool buu ku arkayaa ilmihii physical jirkiisu wuu isbedelayaa qaabkii labiskiisu wuu isbedelayaa qaabkii hadalkiisu wuu isbedelayaa guriga markuu yimaado haa iyo mayuunbuu ku jawaabayaa waalid marka waan ku baraarugsanaadaan marka anagu waxaan wadnaa imika inaan waalidka tababarno oon waalidada wax u sheegno inaan imaamada laftooda waxaanu diyaarinoo la dalku diyaariyey in tababar imaamka la siiyo imaam aanu dunidii imaamka laga noqonayo waddankan islaamka oo qura lama jooge duni khatar badan ilmihii ku socotee la joogaay imaamku waa inuu ku tababarnaadaayo ku baraarugsanaada in ilmahan yare uu gacantiisa ku hayo cid kale ka heli karto laga kaxaysan karo marka tababaradana way imaamadu tagaan waa inaan ku dhiiradaan wadaadadu iyo masaajidadu inay ashkateyn kale almay cidda ka shakiyaan iyo cidda arkaan inay arrinkani khatar ku tahay waa inay ku dhiiradaan inay dawladda la xidhiidhaan markaasaa dawladdiina aaminaad imanaysaa waalidkiina aaminaya dadkina las aaminaya lakin haddi masaajidka soo almay garan waayo ceebta masaajidka ku imanaysaayo in dawladdina focus masaajidadeeni iyo diinteeni saarto ayay noqonaysaa xalka qura marka laga badbaadi karaa waa organizationska iyo masaajidada iyo waalidka iyo annaga oo xukuumadda ka socda inaan wada shaqeyno oo markaa isfahan yimaadaan waalidku waa inay ku dhiiradaan inay ilmahooda telefoon u diri karaan meelaha iyadoo dhan karaan ilmahaygii baan ka shakiyey waxaan aaminsanaya inay dhibaata jirto kaalaya si dhow ula socda maaha dhibaato adigu dambiila ma tiid haddii ilmahaaga waxaan uu galay ood soo sheegto macluuma adigu dambiilaa tahay waxa weeyaan ilmihii waa la caawinayaa arrinkani wuxuu u badan yahay inta badan loo baahayay ka hortag ayuu leeyahay haddii laakiin xaalka uu ilmihii xagjirnimo lagu beero tago meel wax laga qabtaa ma jiro laakiin inta wadada xagjirnimadu kusii jiro ayaa ilmahani uu leeyahay in wax laga qabto aniga marka shaqadoo kale waxaa ku jirta haddii ilmaha waalidka la soo xidhiidhaan oo inta gorgortii la qabto in meelaha shaqada lagu barta la geyn karo
inaan shaqo geen karno hay-adaha shaqadu ay noo ogolaadeen in ilmaha sida xagjirnimada fikir ku saarno in budgetka ku jirtaan shaqo geeno mushaar aan ku siino ilmaha suuqa shaqada aan geeno in waxbarashada hadduu ku yahay macallimiin dheeraada loo qabto oo iskuulka ku ilaaliyo oo sii raaco soo raaco caawiya in waxyaalo badan oo ilmaha waa la rabaa ilmihii la badbaadiyo marka waa in nidaamka yaallay doonaya inuu badbaadiyaan haddaan warbixintiina soo gaadhin oona anagana soo gaadhsiin warbixinta waalidkii iyo masaajida aanay soo gaadhsiin de waxba ma qaban karno marka waan ku raaxsanay maxamed in ay wada shaqayn diinta iyo wadaadadu iyo inagu aynu wada yeelno weliba in lagu dhiirto kulamaynta la yeesho gabadha xagjirnimada dad ka hadasho waxaa laga yaabaa in qaar dad badan sensitive ka qabaan waa arrin jirta indhaa lagama qarsan karo caruurtayniba halkay naga tusin ku weyno naga dhimatay marka waxaan anigu inta badan ku taliyaa sida caawo kale iyo meelaha doodaha iyo arrinkan ku faraxsanay marka jaalida waa jaalida ugu horeysay taawla ka shaqeynay ku dhiiratay in ummadda waxaan ka qabato oo ay ka shaqeyso marka waan jecelahay in macal wadaadinta la isku yimaado dood laga yimaado la yidhahdo war maxaanu yeelnaa dhibaatayna haysata hooyada guriga bay ku haysaa ilmihii bay weyday ilmaheeda jecleyd bay weyday waxaan ku darayaa kusoo gabagabeynaya halkayga qisa cajiib baa ka dhacday halkan hooya halkan ilmaheeda ka tegay Sweden buu ka tegay dagaalkuu galay way ka daba tagtay gabadh baa loo guuriyey gabadhii xaamilo oo uur lagu ayuu tagtay waa in halka iskuulka dhiganayay way barxugtu hooya iskaga kaalay meeshii caruurtiini curadkeedii buu ahaa waa ilmaha ugu jecleed buu ahaa hooya iskaga kaalay dalkii baan ku noqonaynaa 20 ish la soo joogto wuxuu hooya adigaaba ku baqanaya adigaaba dhul gaalo cadaab kugu socotaaye adigu iskaga kaalayo haddaad ilaahay baan ku baryo inuu ilaahay ku soo adiga walaaladayna fariin iga gaarsi ilaahay inuu khayrka faansi iga daba yimaadaan islaantii iyadoo madluum oo yaabun baa ka timi wiil marka joogtay ilmihii madfaca ku dhacay wiilkii uu dhintay wiilkii geeriisa loo soo sheegay wadal xumada ay ilmaheeda nolosha ugu tala gashay ay halkaa timaysdahayd waxbar ayaa markaa waxa weeyaan iyadu imika waa dadka hawsha ka shaqeeya hadlay ku jirta ay hadaan marka waxa isku qoomayaan dadku waxa isku qoomayaan inaan hore u sheego markii hore marka tan doonay caawinkan fariinta mariya uga faa'iideysto wax weeyaan waalidku yaani ka cabsan dawladda ururada organizationska waxaan ka shaqeynaya soo mariya hataa iyagu aanay awoodii afkii dhaqankii garanayno hay dhahdaan caawis baan u baahnay annaga hanoo yimaadaan arrinkan ka hortag buu leeyahay arrintan waa gacmaha la iska qabsadaa waayahay maadaama aad ka dhawaajisay wada shaqeynta waalidka iyo weliba jaariyadaha iyo xukuumadda gudoomiye maxamed waxaan weydiinayaa idinku jaariyadiina waamo qaab noocee baad u shaqaysaan hadafkiina ama meeshaad ka duushaan maxay tahay yaad se kaashataan ama shaqooyinka noocan oo kale ka kaashataan runtii waa su-aal aada u fiican oo dhinacyo badan taabanaysa annagu markaan shaqaynayno waxaan leenahay wax la yidhaahdo hadafka yagu ama ujeedada yadu waxa weeyaan in aanu helo bulsho caafimaad qabta bulsho ka hortagaysa wixii dhib ah ee jira oo dhan inta dhibkaas uusan dhicin hadafka yagu waxa weeyaan in dadka reer Westeros noocay doonaanba ha noqdaane ay ku wada noolaadaan si nabadgelyo ah oo walaaltinimo ah oo isqadarin ah oo is-ixtiraam ah iyadoo aan la eegaynin qofku cidda uu yahay midabka uu leeyahay diinta uu leeyahay iyadoo aan la eegaynin sababtoo ah annaga hadda waxaan noqonay bulsho ka mid ah bulshada reer Sweden marka waa in aanu la saanqaadnaa oo aanu la qabsanaa oo aanu dhinac maaragtay dhinac waxaa la dhihi jiray jambi bijambi carabtu dhihi jireen yacni si wada jir ah aanu ula noolaanaa ummadaha kale oo dhan annaga Soomaali ahaan wixii dhib ah ee aanu geysanaynana aanu ka hortagnaa marka ujeedadeedu waxa weeyaan in aanu ka hortagno arrimaha dembiyada oo kale ama xagjir ha ahaato ama ha noqoto tiimaan dooriyaha oo dhalinyaradu ay ku soo badanayso ama ha noqoto tan faldambeedyada dhalinyaradu ay sameeyaan dhammaan wixii dembi oo dhan inaanu ka hortagno wixii xumaana inaanu ka hortagno isla markaana dhalinyarada dadka aanu barno waxa u wanaagsan hadday noqon lahayd in si dimuqraadi ah ay u wada noolaadaan oo istixgeliyaan oo ay isxurmeeyaan oo cunsuriyada dhexdooda taala iyo isnacaybka dhexdooda yaalla ay meesha ka saaraan ay dad walaalo oo wada jirana ay noqdaan ujeedadu waxa weeyaan bulsho noocaas ah inaan helo hawshaas iyada waxaanu u qabanaa waxaa jira dad mutadawiciin ah ama dad waxgarad ah oo jaaliyadaha la shaqeeya waxaa jira maalanba ururo dhalinyaro ama dhalinyaro iskooda isu xilqaama oo arrimahan jaaliyadda kala shaqeeya iyo dad odayaal ah iyo haween intaba waa ay jiraan sidoo kale tana waxaanu gacan weydiisanaa
hadday noqon lahayd xag technico iyo xag dhaqaale iyo xag talo intaba commuunka wuxuu leeyahay xafiisyo dhan oo qaabilsan inay hay-adaha caawiyaan. gobolka ama waxaa loo yaqaano landistinga wuxuu leeyahay qaybo caawiya jaaliyaadka. dawladda dhexana waxay leedahay hay-ado badan oo ayaguna jaaliyaadka caawiya. marka waxaasoo dhan gacan bayna siinayaan. marka annagu waxay tahay wixii ay dawladdu qaban weydo, waxay booliisku qaban waayaan, waxay maxkamaddu qaban weydo, waxa commuunku qaban waayo, annagu inaanu qabanno. waayo annagu dadkii baanu ku dhex jirnaa, dadkii baanu ka midnahay. xildhibaan xamsa dhowr jeer ku celceliyey in jaaliyadaha ay shaqo muhiima qabtaan oo aanay qaban karin dawladdu. marka aan qaabka u shaqaynayno oo aan dadka yagii iyo dawladdiiba adeegsanayno, ujeeddadayadu waxaa weeyaan inaanu helno dad xalaala oo nadiifa oo walaala ah oo waxaa loo yaqaano holbar samhelle ama bulsho waarta oo uusan dhib dhexdeeda ka jirin, dhibkii jirana ka hortagta. sidaas baan u shaqaynaa. waayahay su-aasha kale muhiimka ah ee aynu galayno guddoomiye maxamed, maadaama ka sheekeynayna xagjirnimo iyo dhalinyaro laga yaabo in meelo loo kaxaysto, haddii ay dhacdo inay soo baxaan dhalinyaro magaalada Västerås ee dhulka jaalidin ku taalo oo kale la ogaado oo ay baxeen oo qabteen meelaha ay dagaalada ka socdaan, anigu waxaa xagjirka ay kaxaystaan, maxaa dhacaya, maxaa sameynaysaa? run ahaantii waa arrin yaro adag una baahan in la iska kaalmaysto oo ay iskaalmaystaan hay-adaha dawladda iyo jaaliyaadka iyo waalidka iyo dadka dhibaatada ku dhacday oo dhan. haddii ay dhacdo oo la ogaado dhalinyaro reer Västmanland ama reer Västerås oo jihaad tegay, waxaa la sameeyaa dabcan waxaa ogaanaya hay-adaha amniga way ogaanayaan, ama waa in la ogeysiiyo oo markaasi cidda markaasi ugu dhow waalidka oo kale ama qaraabada oo kale ama ehelka oo kale baa arrinta ogaan karaya. jaaliyaadku waxay ogaan karayaan marka warka loo soo sheego ama qof waalid uu soo sheego ama qof saaxiiba uu soo sheego. laakiin dadka xilka ugu horeeya uu saaran yahay waxa weeyaan waalidiinta, qaraabada, ehelka, dadkaasi ay wax isu yihiin. sababtoo ah haddii berri qofkaasi uu soo laabto waxaa laga weydiin karayaa dadkii wax ka ogaa ee haddana qariyey. marka waxaan kula talinaynaa ugu horreynba markii la ogaado qof maaragtay khatar ugu jira xagjirnimada in ay la soo xidhiidhaan jaaliyaadka ama xildhibaan xamse oo kale oo hawshaan uga shaqeeya bagashta, laakiin sidoo kalena reer Västerås xisaaban oo nin reer Västerås ahaan jiray oo gobolka Västmanland oo dhan ka shaqeeya. marka hay-adaha dawladda jaaliyaadka way soo wargelinayaan. waxaan markaa isku dayaynaa in inta aan qofka inaan xoogga saarno oon isku dayno inaanu wacyigelin u samayno oo aanu ka dhaadhicino fikirkan uu qaatay inuu fikir khatar yahay, naftiisana khatar ku ah, ehelkiisana khatar ku ah, inuu ka badbaado. laakiin hadday dhacdo qofkii inuuba tago oo uu dhoofo, markaasi dee dawladdu waxay u baahan tahay inay ogaato. laakiin dadka ogeysiinaya waxaa weeyaan dadka ehelkiisa ah. jaaliyadduna hadday ogaato dabcan way ogeysiinaysaa hay-adaha amniga. xamso, su-aal taa ka yara gedsan aad weydiinaya, maadaama adigu xukuumaddii aad ka socoto, haddii ay dhacdo ama aada ogaataan inay jiraan dhalinyaro khatar ugu jiraan inay xagjir noqdaan, ma jiraa wax barnaamijooda gaartaan dadkiisa? absolutely waa su'aal muhiim ah. saddex arrimood baa loo kala qaybiyaa oo sharciya loo kala qaybinaa. in marka hore si guud dhalinyartoo dhan wacyigelino waa arrinta looga hortago. waxaa jirta markaa in haddana gruubka aad sheegaysay ah cid khatar u ah inay maanta xagjirnimada waddada ku jirto ama waddada xagjirnimada ku jirto haddii aan ogaanin. in gruubka saddexaad oo ah markuu sida waxaan sheegay uu tagaba haddana gruubka dhexe khatar ugu jira in ay xagjirnimada ay tagaan xagjirnimada ku biiraan. okay ha horta marka koowaad waajibka koowaad waa in qofka ugu dhaweeyo ehelkiisi waa noo soo sheega isagaa ogaanaya. marka aanu annaga gacanteeda soo gaaro ee aanu ogaanina noo sheego waxaan leenahay fursado fara badan oo ilmahan ku badbaadino. haddii uu camal la-aani jirto inaan shaqo u raadino, haddii uu tafashkusoo sheegay dadka uu dareensay bulshada banaanka ka yahay inaan u sheegay dalka inaan laga lahayn dadka uu la mid yahay sa dad kale wax qabsan karo. in haddii familiga caws u baahan yahay family laftiisu dhibaato ka tiro yarka family kor loo qaado loo baahan yahay in family laftiisa aanu caawiyo. in markaa
meelo fara badan oo ilmaha yarka caawinaa jira laakiin waa haddii waalidku uu nala soo xiriiro oo arrinkaa la ogaado marka arrinku qabad leedahayna waxa weeyaan markaa la ogaado ilmaha waddada xagjirnimada ku jiro haddii laakiin uu tago meeshaas ah barnaamijka idinka mayd ku diyaarsan wax barnaamijka ka jaariyad ahaan haddaad ogaataan dhalinyaro laga yaabo inay iminka ku jiraan in noqdaan waa su-aal wanaagsan weeyaan in xildhibaankaas si fiican u sheegay laakiin waxaan ku dari lahaa haddii ay dhacdo inaan ogaano arrintaas waxaa jirta hay-addu waxay dawladdu waxay leedahay hay-ado fara badan oo arrimahan ka shaqeeya marka la ogeysiiyo hay-adaha arrintaas ay khusayso landstiralsaha kalaha ka mid ah hay-adda dhalinyarada ka mid ah gobolkaa ka mid ah kumuunka wuxuu leeyahay xafiisyo dhan oo arrimahaas qaabilsan marka gacan bay siinayaan qofkaas annagu kajaaliyad ahaan shaqadeedu waxaa weeyaan in aanu xidhiidhin samayno waayo annagu ma lihin awood dhaqaale oo aanu qofkii shaqo ugu abuurno ama aanu wax kale ugu samayno jaaliyaadka shaqadooda waxa weeyaan waa wacyigelin intii aan wax dhicin inay marka hore dadka ku wacyigeliyaan iyo xidhiidhin inaanu noqono gacanta dheer ee dawladda oo aanu dawladdii qofkii kusoo dhaweyno oo nidhaahno waxaan la xidhiidhaynaa kumuunka waxaan dhahaynaa dad noocaas oo kale taa jira fardhan waxu qabta dadkiina waa naqaanaa kumuun ka shaqaynaya hawlahaas qabanaya marka tallaaba laga qaadaya waxay leeyihiin waddanka isfulin badanaa hay-adihiisa iyo kumuunkiisa iyo wax la yihahdo otiyads plan iyo plaano kala duwan qorshayaal kala duwan bay leeyihiin markaaba shaqaa laga qabanaya qofkii waxaa la isku dayayaa in la badbaadiyo noloshiisana wax laga bedelo laga dhigo qof caadiya waayo xildhibaan xamse haddii qofka dhalinyarada matalan xagjirka laga dhigo oo dhoofo u tago matalan ama soomaaliya ama suuriya oo kale meelaha ay dagaalada ka socdaan oo qofkaa dhalinyarada uu waxba isaga gara waayo oo uu soo noqdo gurigoodii ku soo noqdo iyo waddankii ka tago isku dhaa maxaa la sameynayaa miyaa la xidhayaa oo dawladdu way qabsanaysaa ilmaha yar miyaa la soo dhaweynayaa barnaamijka arrintaas u degsan muxuu yahay dhinaca xukuumadda wallahi horta arrintaasi waa su-aal imika taagan sharciyan qofka haddii uu dalkaa uu meelka kasoo dagaalamo uu nimankaa raaco waa dambiili oo dagaal buu soo qeyb qaatay mushkilad buu soo galay waa dambiili laakiin dooda maanta meesha taagan qofka inuu dambiile yahay waxa ku caddayn doonta markaa waxaa la horkeenaya hay-adaha sharciga hadduu soo noqdo hay-ada sharcigaa la keenaya haddii laakiin ta doodale waxa weeyaan haddii ilmahaasu ka toobad keeno wixii uu galay hadduu ka toobad keeno waxaa jira degmooyin lunda magaalo la yidhahday iyo oroburo oo bilowday 2 sano kahor oo aad looga hadlay marka magaalo kale ku diiratay oo tiri dadka soo noqda ee toobad keena waxaan u diyaarsanahay inaanu rehabilitation aanu dub qofkii caadiga ha uga dhigno haddii diin lagu lahaa ka dhaafno oo haddii waanu liisan haysan oo haddii uu shaqo haysan in waxaasoo loo abuuro waxaa dhinac socdo fikir kale odhanaya waa qofka dembiga soo galay dagaalkee dhibaatooyinka soo sameeyey baa intuu dalka imaad lagu soo dhaweynaya waa dembiile maxkamadda hala geeyo hala xiro anigu markaa dadka fikirka markaa maqaaludna waxa weeyaan qofka haddii horta uu dembiile yahay maxkamadda la geeyo la xukumo kiiska lagu helo markuu dembigiisa soo dhamaysto waa inaanu xaq xuquuqdiisi ku waayin xagjir baad noqoto kasoo noqotay waa inuu sida dadka kale dembiga caadiga ah gala ee xukunka soo dhamaysta haddii dambi lagu helo ee xukunkooda soo dhamaysta caawiska iyo noloshii in lagu celiya hela waa saasoo kale xaq u hela haddii dambi lagu helo haddii aan dambi lagu helinna waa in la helaa maadaama uu toobad keenay waa in loo helaa halkii laga caawin lahaa iyo si bulshadii loo dhexgelin lahaa marka taasi waxay keenaysaa inay dhalinyaro badan ku diirato inay soo noqdaan haddii ogaadaan in fursad halkan ay ka helayaanoo noloshii lagu celinayo markaa waxaan aaminsan waxa yaraan doonta kuwii naga tegayna way yaraan kuwii soo noqonayna way badan doonaan haddii laisku dayo in ilmaha ka yimi aan dembiga lagu helin cad lagu helin in la caawiyo marka labada fikir marka way isdhinac socdaan waana dood imika taagan oo wiigan ugu dambeeyay aanu doodeeda aanu ku jirnay aanu aada uga doodaynay laakiin weli aan go-aan saxa aan laga soo saarin waayahay xildhibaan xamse matalan qofka hadduu soo noqdo waxaa kamid ahaa hadaladaada inay jiraan fikrado oo dhan iyo qofku waa dembiile oo waa inuu soo dhamaystaa dembigiisa marka dembigiisu qofka noocaas oo kale muxuu noqonayaa ma sanad baa la odhanayaa waad xidhnaanaysaa oo kadib waxaad kusoo noqonaysaa nolosha caadiga ahayd ma 10 sana lagu xukumayaa oo waxay noqonaysaa arrin qofkii uu ka baqo inuu soo noqdo oo kale waa sidee dembigiisu qofka noocaas oo kale horta su-aasha imika arrinta marka la sheegaya waxaweyaan in ka badan 130 qof ayaa kasoo noqday halkaasoo isku dhegiyey arrintoodana marka loo diyaargaroobaya nidaamka imika waa arrin taagan arrinkan arrinku waxa weeyaan haddii xukun iyo dembi tahay xukun kasta wuxuu ku xidhan yahay dembiga qofkaa lagu helo
marka haddii waa arrin sharciyan u baahan marka maxkamadda qofka la horgeeyo wixii cadaaladda uga soo baxa dalkana waxaa ilaa heer waxaa lagu sheegaa wuxuu yahay dalalka cadaaladda dabaqay qofka marka cadaaladda la horkeeno marka ciddii dembiga saxda lagu helo nasiibkiisa halkaa go-aanka maxkamadda kasoo baxaa intay doonta ha noqoto inaguma sheegi karno cadaaladdiisa marku soo dhamaystay dembi haddii lagu helo waa loo doodaya isagu doodaya marka dembi lagu helo oo dembigiisa soo dhamaysto waa inuu helaa waa in suuqa lagu sii dayna waa inuu helaa xuquuqdii qofka waddanka imika haddii dhalinyartu ay dembi galaan amba wax dhacaan amba kriminaal noqdaan ay xabs soo dhamaystaan hadhow waa dhalinyaro wadadii dhalinyaro mageysay waxay helaan caawimo iyo hay-ado ay caawinaya helaan marka saasoo kale inuu helo un baanu doonaynaa laakiin sharciga intuu xukunka ka helayo waxa sharciga dalka dee cadig u yaalaa la marinaya waa qofkani sida dadka kale dembigiisa loo qaadaya ha waaya su-aasha ugu dambaysa labadiina waynu weydiin doonaa waxaan ku horeysiinayaa guddoomiyaha gudoomiye maxamed maxaad kula talinaysaan dhalinyarada soomaaliyeed si aanay u noqon dhalinyaradaasi qaara xag jir ama kubiira xag jir waxaan kula talin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee joogta waddankan Sweden run ahaantii fursad fiican bay heleen waddan fiican bay yimaadeen oo dimuqraadi ah oo dhaqaale haysta oo dejintooda iyo wax ka qabadkoodaba diyaar u ah fursado fara badan baa jira oo dadka loo hayo dadku yaanay ismadax qaadin oo ayna fikir gaaban ka qaadan waddanka Sweden yaanay u arkin matalan qaar baa iska oranaya waddankan Sweden waayo shaqo ma helayno meel ma u socono waxba ma faa'iideyno fikirka noocaas ah fikir khaldan boqolaal dhalinyaro ah waa maalin walba jaamacada ka baxa maalin walba shaqooyinka kuwa ugu sarreeya waddanka hela wuxuu u baahan yahay bas dadaal inuu qofku isku kalsoonaado ilaahaysana aamino nasiibkiisana uu muxuu ahaay aamino ilaahayna wuu caawinaya dad muslimiin ah marka waxaa fiican in ay xoogga saaraan sidii qof walba shakhsiyadiisa u dhisi lahaa inay waxbarashooyinka dhalinyaradu ay haystaan ee bilaashka ah ee adduunkaba aan laga helin inay dhammaystaan kow dugsi sare inay ka baxaan iyagoo dugsi sare ka bixin in aanay wax kale ku mashquulin kadibna jaamacado inay galaan kadibna shaqooyin fiican inay raadsadaan inay active noqdaan oo bulshada ay waxyaabaha suuragal ka ah oo dhan iyo fursadaha jiro oo dhan ay raadsadaan shakhsi iyo koox inay is abaabulaan laakiin hadday niyad jab isku ridaan taasi waxay keenaysaa hadda arrimahan aan ka hadlayno dembiyada ayay keenaysaa marka inay isku tiirsanaadaan in ay wax qabsadaan in qofkii wax dareema ama dhibaata ku dhacdo jaaliyadaha jira odayaal baa jira waalid baa jira waxgarad baa jira inay la xidhiidhaan annaga oo kale gobolkan Westmanland yaan ka shaqeynaa way nala soo xidhiidhi karaan waalidku ha noo yimaado derisku ha noo yimaado cid walba cid kale ka shaqeeya ama talo u doonaysa ha noo yimaadaan marka qaabkaas dadaalka ayay dhalinyaradu horumar ku gaari karaan ayna uga waantoobi karayaan inay galaan dembiyo ama hadana noqoto xagjirnimo ama dembiyada kale marka saas baan ku talinayaa dhalinyarada anigu waxaan aaminsanahay dunida waynu nimi mas-uuliyaddu waxay saarantay waalidiintii dadka way saarantay waxaan aaminsanahay dadka waaweyn ee soomaalidii hawshooda way gabeen waxa weeyaan ilmahan wuxuu u baahan yahay in gacanta la isqabsado waalidiintu intay is abaabulaan ay arrinkan si fiican ilmaha u caawiyaan organizationsku imika waamo kale wata imika u diyaarsan inay dhalinyarta caawiso laakiin dhibaatooyinka ugu badan waxaa saaraya organizationada soomaalida saaraya waxa weeyaan waxaad moodaa in wax kale ku mashquulsan yihiin aanu ku mashquulsaneen waxa ugu qaalisan meeshaan ku haysana waa carruurta weeyaan ilmaha weeyaan waxaad moodaa inaynan ka saarna meesha festrosi festival gobolkan deganahay kale intaasoo jaaliyood baa ka jira dad waaweyn baa wata waxaan la garanay bay ku mashquulsan yihiin lacagtii cashuurta ee degmada iyo gobolka la siiyaa waxaan loo baahan yahay waa ilmaha in meel loo sameeyo ilmaha in waxbarasho dheeraada la siiyo organizationada ay caawiyaan in kulan loo sameeyaan anigu waxaan aaminsanahay marka dhalinyarada haddii ilmahani arrinta waan kala qaybinaya inna waajibka waalidka iyo wax saaran tahay bulshada inna waxay saaran tahay dhalinyarada ilmahan dhalinyarada ee halkan yimi waa kala duwan yihin qaar halkan bay ku koreen kuwa halkan ku koreen iyo kuwa yimi laba xaalad bay kala yihin halkan ku yimi ee dhowrtoojo ku yimi ee waalidka halkan ka hor yimi waa in horta ogaadaa dalkan waalidkiisa u qaxoontiyu yimi isaga nolol buu soo raadiyey marka lambar one ilmaha waa lagu qanciyaa dalkan aad timi anigu anu qaawan baan yimi nolol baan kuu soo raadiyey adaan ku keenay waxaan kugu keenay adigu inaad nololtayda ka fiican inaad hesho noloshana idinkaama laha marka halka haddaba hadalka waalidka qolku macna organizationskan waa inay fikrada waa inay tusaale u yihiin oo ilmihii waddadii saxda ay ku hagayaan oo jira organizationo u habaysan ilmaha in afkiisa ay kula hadlaan in loo sheego
kuwa kale ee halkan ku dhashay waxaa jira organisation badan oo dalkan ka dhisan oo caawiya oo xitaa caddaanka ka mid ah waalidku waa inay ku dhiiradaan haddii ilmuhu uu waddadii ka leexanayo waxaa jira qaar ciyaaraha u sameynaya waxaa jira qaar dhaqan cilmi u sameynaya waxaa jira qaar waxyaalo badan waxaa jira hay-ado badan oo association kuwa dawladda iyo oo ilmaha caawidan loogu talagalay waa inay waalidkaasi ku dhiiradaan mar walba inay la xidhiidhaan midigeytaga wada shaqayn dhow ay xukuumadda iyo la yeeshaan iyo marba degmooyinkay degan yihiin marka ilmahan wuxuu u baahan yahay in la caawiyo u baahan yahay